maqli jira gaariga qaad gedislay jacayl gedayso iyo gaayaa taaye gacalka ma rabee gooso abduloodin waliba ku tabtay gudkhayaana guntiise oo goodka buuxa gardara iigu riday war kalamaanay intaasoo gacleeyo aad gabay iyo hees iyo geeraar ku sheegteen xaalka odayaashaa kala maraya war nin walba geedkan qabsadaha lay gooyo muu yidhi war lamba geedagay gobsadii howla la gooy uslay goomo gooma undhiye aryaadhaha soomaalidu waxay tidhaahaa maslaxa diid madarkow ku jabaa hase yeeshee maslaxa iyo gar in la qaadaa waxaa ka horraysa horta in guurti la helo garta odayaashana waxaa la yidhi taageerayaalaha qaadaaya mugga hebelaa gar daran iyo hebelaa garlena waxay imaan kartaa mugga guurti dhexdhexaada oo madax bannaan ay garta gasho sheekada garsoorayaashuse hadda waxay iila eg yihiin gurbaan amba garabkaaga ha kuugu jiro amba gacalkaa ha kuu haayo cabdullah waxaan maqli jiray aan wax kuu galaya wax ma kaa galaa warnamiya madawiine farmaajo heesiya leeri way eray maslahadiid madar waa ku soo jabaa muuna midkiin u yeelay madax korkiisa ansaaray iigu muraad gaaray manyac keenay I'm sorry yeri war-ra'iisul wasaare Rooblana waa heesaa la yidhi wuxuuna yidhi dadka ha iska weynayn inaad keli wax garad tahay haska dhigin walaalo warwar ma haysaana fahadoo Rooble u jawaabayaa heesay wuxuuna yidhi ilaaheenna weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahanismoodee war wasiirka amniga oo reergeliska haashada ka mid oo faad in jawaabay wala yareen allah magane waan rabay inay kugu adkaato cidna irsan weyde wartarashow waa adduunyo ilaan aaya ma lahe muxuu ku dari waayey war dowladnimadii waxay u ekaatay ubixi baxayay sawdigan abaarsaday war wax laydinma sheegi karee madaxduna waa nabaysaana fanaaniin maaha eeysana ma qaadine dhexdhexaadintii laga dhex waday ilaa hadda laguma guulaysan madaxweynuhu wuxuu istaagay baa la yidhi hay-adda nabad sugidda taliskeeda yaan la iigu iman ilaa wasaaradda amniga kiiskan gabadha ikraan tahliile lala ordayana hoos aanu xallinno ra'iisul wasaaruhuna wuxuu istaagay baa la yidhi saddexdaa qodob midna inuusan ka tanaasulayn labadaa muuqafoo adag markii la kala istaagana dhexdhexaadayaashii waxay isku dayeenaa la yidhi ragga madaxooda laysku hayo inay dhahaan war adinka qudhiinnu xal keena oo samroo xilalka qaarkiin ha ka tago hase yeeshee isla markiiba inaan laga yeelin waxaa caddeeye fahad yaasiinoo sheegay inuu xilkii ku wareejiyey yaasiin farey war fahad ma hadliin twitterkan isaa warkaan lagu soo qoray hadda ka horna isagoo turkiga jooga sidaanoo kale loogu soo qora war fahad iyo yaasiin farey dadkii qoyska ikraan tahliil ay eedaynayeen bay ka mid ahaayeen marka xilka ay isku wareejiyeen sow mid raadkii lagu baabi'inayo maahan war madaxweynuhu waa taliyaha ciidamada qalabka sida asagaana dalka ugu sarreeya wixii tala'aan haddii daacido jirto waa in looga dambeeyo amniga qaranka ciddii ku qabsataana inay dulmi waddo way iska caddahay war odayaasha isgalsiyin aruntiolka noogsiyin intii linweer sallanka isgeliya mal ero dooga meelaka leedo war xildhibaan xasan firimbi hadda ka hor wuxuu yidhi madaxweynuhu mar kasta wuxuu yidhaahdaa anaa tanaasulay laakiin weligii ma tanaasulin jawaariya asagu markay isqabteen jawaari baa tanaasulay shariif xasan iyo asagu markay isqabteen shariif xasan baa tanaasulay xaaf iyo asagu markay isqabteen xaaf baa tanaasulay cabdulaahi cosoble markay isqabteen cabdulaahi baa tanaasulay maxamed cabdi waare markay isqabteen waaraa tanaasulay maxamed mursal iyo asagu markay isqabteen mursal baa tanaasulay khayri asagu markay isqabteen khayraa tanaasulay marka weligiis madaxweyne tanaasul badan oo tanaasula lama arag buu yidhi war hadda iminka Rooble uga fadhiyaa tanaasul waryaa qaranduus baa tiini nabadoon madaxweyne farmaajo leeyahay madaxweynaha waana astaantii qaranka marka loo tanaasulo miyaad leedahay aryaadhaha loo tanaasulaa ma xumee waxa la isku hayo wax laga tanaasuli karaa ma yihiin horta war kalamaanay waxaa la yidhi
hadda ka hor nin reemiyaha hal uu jeclaa ka xanuunsatay hashii oo nabar ku taagan yahay uu geelii ugu dhex tegey hashuna hal madiyahoo aad uu jeclaay bay ahayd markaasuu hashii intaaga istaagoo baydda gacanta ka saaroo malakumowdkii barya ugu dhaqaaqay markaasuu yidhi hashaanu waa hal madiya waa hashaan geela ugu jeclahay tan kama maarmee malakumowdow neefkaad rabto geela ka muquunsee tan un iiddaa intuu baryihii waday yaa hashii ka soo dulgariirtay markaasuu inta dhinac uga booda yidhi haygu dilin neefka weligaaba wax lagugula dhegay adoo daayo laguma arag warkaaga macnihiisa rooble fahad haddii lagula dhegay muxuu u dayn waayey miyaad ka waddaa war anigu sheekada waxaan u fahmay madaxweynuhu hadduu doorashadii amnigiiba wareejiyey muxuu uga hadhi waayey war anigu sheekadaas waxaan u fahmay ninba sida uu qaataba gamuu qaansan loo saar ninba meesha gubaan u garanayaa war way kale leedahay lamba meeli huraaso hooday sidee hogoolay fade war xalay maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha waa wada hadleen baa la yiri doorashada maana maxay kale ka wada hadleen ma garan warnimiya maamul goboleedyada agaalkii sare wili ma ku dhamaana Soomaaliland wili kama meerna war ma haysaan ereygii manxiis waa la bedelay waxaana soo baxay ayaantan magac la yiraahdo waraabowtaag nacam leeya miya war maror basingare walaasan malhiis guraasan la jari leere war ereyga waraabowtaag haddaan idiin macneeyo Soomaalida hore waxay sameyn jirtay markuu reerku guri dega bahal leh ayaa muska ariga waxa laga taagi jiray mututul qof u eg oo geed ka samaysan oo marya loo geliyay si aan waraabuhu ugu soo degdegin beeraleyduna waxay sameeyaan geed u eg qof oo beerta laga dhex taago kaasoo shimbiraha iyo bahallada kale miraha cunaba lagu cabsi geliyo magaasheena guulguul beerada leere array dhowraarinaa la yidhaa war waa waraabowtaaga marka xagga siyaasadda loo adeegsado waa niman sharaxnayn oo meeshii la iska soo taagay marka xubnaha Soomaaliland ee doorashada gelaya wax waraabowtaagii kuma jiraan